waxaan joogaa magaalada Hargeysa ee Somaliland safar baan ku imi laakiin intii aan ku sugnaayeen joogay waxaan jeclaystay inaan bal wax ka ogaado dhalinyarada fanka ku cusub ee soo galiyay fanka ee talentiga leh hadda xilliga ciyaartiisa waxaan ku socdaa mid ka mid ah garoonada kubadda lagu ciyaaro ee ku yaala magaalada Hargeysa waxaan jecelahay inaan kula kulmo mid ka mid ah dhalinyarada fanaaniinta cusub ee fanka ku soo biiray ee haddana talentiga Ilaahay siiyay wax badan ayaan jecelahay bal inaan wax ka ogaano fanka garoonkan gali doona iyo dhalinyaradan ka dhex gali doona waxaan soo heli doonaa fanaankii aan markaas ugu soo talagalay kubadda ciyaariyay inaan si aanu lama filaana aan ku qabto kadibna nala soo halkan waa garoonkii waxaan jecelahay inaan fanaankii markaasaan bal ciyaarahan ku dhex jiraa inaan meelahan ka soo qabtan rabaa ما شاء الله بدأك السؤال كتير وحالك أنا صعنا يا كويني ما شاء الله كلها عندك كلام صافح إنه كلها عندنا الدنيا عيارتي الوقت كتير صالح ما في عنده سفر بان كيمي waxaan ka yimi Nairobi ha marka waan imaaday والله يا بني بس dalka ku timi waxaan halka ku insan ku soo raadinaya ayaan u imaaday waxaan rabay bal dhalinyarada kubadda ciyaara ee haddana fanaaniinta ee jaamacadaha dhigtay inaan barnaamij kuwii hore ka bedelan aan sameeyo maadaama inay yaro talent hadda soo baxayatay waxaan jeclaan lahaa inaan marka barnaamij ka qabto واقول بس وناكسن عاد بان ku faraxsanahay diyaar ma tahay diyaar baan maanta safaraysi kula tahay ma diga dhigtay laakiin waan diyaar garow qasbay ma laha halkii gamaad filanaan ma filan aad iyo walaal yaa barahay safaraysi lagu noqon bas waayahay waxaan samaynayaa barnaamij baan jecelahay inaan ka qabto safarna waan tagayaa iyo waan baxayaa laakiin waxaan jecelahay isla iminka inaan barnaamij ka qabto diyaar isla hadda ha Charles waxaan ku siinayaa 20 minutes si aan barnaamijka halkan kaaga qabto oo waliba degdeg iyo kadis aan kugu adoo aan filayn inaan barnaamij ka qabto haddaan kugu soo kadiyana iga raali ahaa ma idhi mar haddii lagu qabtay waan barahay barnaamijka waana waxa aad u qurux badan 20 minutes waan ku diyaar garoobay oo bas gaarigan kugu sugayaa 20 minutes oo kaliya ayaan gaariga ku dhex fadhiisanayaa soo diyaar garoow ayo ma santahay كل وعنا وناكسن كنا سودوا هذا برامج كفنك يسوقان هورار ميديا برودكشن برامج كوحة قمرية أنا جوا إجلن شو طبعا وحن كسوقنا هاي مجال هرجيسة وحن شعلا هاي بل إن أنت عن شوبه مجال هرجيسة عن فوكس كسار اللي يرضى فنك كصابيرة كصاب عصب واتاي سودوا مركلة وندو إجلني صالح سنة وانيجي أضع عيارية أو جرون إسكتران ماشي بيجوا وجين هرتين أنا شوقي هرجيس ميدوجي ماي أمان كاجي أفكار بيجوا نقطة هيا كده بيجوا نقطة رونهان تيدانو إسك حماس ليسن أو بدنا قلبتها خميس تيجي عمرنا كبدأ عيارة هيا أنت كلا أرضي ونسكننا هاي وحوان دقنا أنا ودي نفتي ذو حياضي ويسكوا بدي سنة أصحابي لا عيارة أو في لون وايبن بيجوا نقطة إن إجلانو يهرتاجن ولي بيجي ريسدي ولي بجرون كيساو دحتاجن ولي بجرون كدحتاجن لا فيلم waa bay igu noqotay deewan xamaasadeysnaa xamaasadii kubadda iyo surprise kana isku qabtay mala waxa bad la yaabtay ba goolkii aad dhalineysay anoo ka soo jeeday Allah gool baan doonayay markaa inaan dhaliyo ana leeyahay dhalin gaadhay laakiin inta soo baxay
hadda marka haysaa markii waanigii ku soo qabtay wixii telefoon ma garaacday dib ma soo abad argagaxdo bartibaad kaga bartibaan kaga mootaan mac salaami bedel sameeyay ma ku bedelu waa tahay waxaan waanigii sikadiisa kuugu imi qofka talentiga de qofna waa la raadiyaa oo isaga la doonayo la yiraahdaa isaga wax doono yiraahdaa in waraysi layga qaadaan rabaa intii fi hebel laygu casubaan rabaa in halkan layla cararaan rabaa kaale waraysi iga qaad qofna de waa qof isagu dadka ay arkaan oo focuska ku hayaan ay soo raadiyaan marka dabcan markan heesahaaga arkay oo aan dhowr jeer daawaday heesahaaga inkastoo aan filayo inuu yahay barnaamijkii ugu horeeyay ee sidan oo kale qof kaliya ka qabto dabcan barnaamijkan ka horeeyay ma fadhiisan sidaadaba laakiin heesaha video baan duubin jiray mana hadii yarba ma ahayn wali kuma inta la jirin xataa wali barnaamijkan soo fadhiisto aniga selfie way jirtaa barnaamijyo kooxeed oo marka sanadlayaal way ku waasiran bacdeen ciidoo kale sanadka cusub oo kale barnaamijkan kooxdo dhan la soo fadhiistaan hees ku leeyahay la soo fadhiisto wuu jiraa laakiin barnaamijkan shakhsi ahaan aniga laga wareystaan soo fadhiistaa ma jiro haye kana ugu horeeyay kana kadis baad iga dhigtay waan kugu cilqaba waliba haddaba aniga maskaxdayda waxaan ka keenay maadaama inan yaroo dhalinyaro oo funki dhawaan ku soo biiray haddana talentiga ilaahay siiyey iyo karaamadaas siiyey oo heesahaagu soo jiiteen intaan telefoon garaacay oo cirka orday oo dhulka orday oo samada orday baan markii dambe lagu yiri halkaas ku jirayo waanigi halkii anigii barkhado ordayna waanigi ku nimaadno ku soo qabanay waxaan ku leeyahay markale ku soo dhawow anigana aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo hor fadhiisto bal waxaad iga warantaa xilligaad fanka soo gashay iyo adigoo xabad aad anigu dul istaageen sidoo kale iglanay waan dhowahay anigana farxad bay tahay inaan caawa iglan la soo fadhiistay barnaamij oo kala soo muuqdo inuu halkan soo hor fadhiisano waliba dee si aan ku talagalahayn magacayga dhammaystiran waa Saalax Cabdirasaaq Maxamed dadku laakiin Saalax Sanaagun bay yaqaan marka Sanaagun halku ka yimid magaaladii baad iska qaadatay gobolkii dhammaan ximbaartay haye magacayga dhammaystiran waa Saalax Cabdirasaaq Maxamed Sanaag bay raaca waxaan ku dhashay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo degmo qiyaas ahaan dhanka bari kaga beegan 230 kilomitir haye waxaan ku soo barbaaray magaalada Ceergaabo waqtigeygii u badnaa waxaan ku soo tisqaaday islayada waqtigeygii ugu badnaa dhalinyaranayada aan ku soo qaatay haday dugsi quraan noqoto haday waxbarasho iskuul noqoto ilaa dugsi sare ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi hoose haday heerar kubadeed iyo asxaab noqoto dhalinyaranimo iyo sports intaba iyadu ma ku soo marka adoo waxaaga sita oo fankaaga sita oo kubadaada sita oo waxbarashadaada sita oo waxaaga dhan oo dhammaystiran ayaad magaalada Hargeysa ayuun baan soo boqolo halkan waxa la marka Hargeysa maxaa la waan waxayga waa sitay taban waa tahay sideed ka ogaatay inaad fanaan noqon kartid oo waxa shacbiyada inta leeg sameyn kartid horta iglanay tii qof walba ama ha yaraado ama ha weynaade u dareemi karaa waxa uu bini'aadanka ka wanaagsan yahay waxa ay nafsad ahaantiisu ku fiican tahay oo marka ay suran karo wad ku hana qaadi kartaa oo meel bad kaga soo muuqan kartaa runaantii aan yar baan aroosyada jeclaa fanka jeclaa haday noqoto inaan aroosyada xaafadoo kale markay tageen aroosyada aan yar ku ooyo ka qayb galo heesaha hore dhageysigooda jeclaysto aad baan u jeclaa laakiin hadda bay suurta gashay inaan ana masraxa ka soo muuqdo in badan baan doonayay inaan heeso oo shacbi in badan bay maskaxda kaaga jirtay in badan baan jeclaa heestii ugu horta fanka xilligeed ku soo biirtay bal yara sheeg fanka waxaan bilaabay dabayaaqadii 2017 sanadkii 2017 isla Hargeysa ka bilaabay intaas baan heesay marka imisa sano noqonaysa 3 sanadood adigu ha qiyaasaan 3 sano noqonaysa heestii kuugu horeysay soo ma xasuusatid maybe heestii ugu horeysay bahjiyada heestii ugu horeysay qaada heestii kuugu horeysay aad fanka masrax adigu leeyahay heestii ugu horeysay anigu leeyahay masrax kaga soo muuqdo bahjiya la yiraahdaa balna yara maqashiin bahjiy birimoy bahjiy birimoy adaa baxsanee hablaha beeladkii barbaaru sitee maadaama waqti hore aad buu xasuusto in la codka aan ku yiri codka iyo isteelka iyo intuba anigu waa ku siiyay dad badan oo kalena way ku soo siiyeen bal heesaha aan caawa halkan la soo fadhiisanay hadii fanaan meesha fadhiyo aniga dadka mar hadii fanaan ay arkaan aniga ma bay arki karaan fanaanka un baa ma wali noo arkay
وحرام بالهيسة هنا عادي من كائن عاو هيسة وجوه رئيسان شعلنا هاي هالكن كفرنا برامجك هيسة إنه رئيسان برنامج كنا كفريو شعيل دبها كنا عيبة ليرها شعيل دبا هو كنا عيب مركب كيف بين تابد ربتوي إلى شعيل كده بتضل عضي تكير رنتها هدوم الأول نقضي خلا وضح حرامي سنة يداوم لها ملا ما كانت تقولي ماذا يبينتها ما هي واسكا ياري ضد كاي قدرين كاسين ما داوم أكيد بتاع مدام سورتقل وين شعيل بنا عيب كتسأل نقرأس marka waxa la yiraahdaa jacayl dabo ku nacay heestan jacayl dabo ku nacay baa la yiraahdaa bedelkeedu yahay jacayl been oo kuwaan ku rabaa waa tahay may afkaan moral heestan waxa sameeyay walaalkay marna saaxiibkay abwaanaad u daayiran halkan ka salaamayo cali maxamed haybi laxanku waaniga muusiga waxa tumay ustaad mawlid xasan faarax ee ku sugan jigjiga iyo sheekada oo la xamiistana waa tahay waa may hiiwan isku yardaday macnaha heestan ku furayna adaa laxanka iskale codkana adaa iskale ereyada lagu keenay muusigana waa lagu siiyay dabcan ha waaw mikrofoonkan jeclay inaan ku dhiibo bal heestana jacayl dabo oo ku nacay iyo sanaag walayna ku wada raaxaysanaa daadan dhabayn karin rajada aan dhowran jiray oo uu axdigii dhisnaa dhankaaga ka sii jiray maxaad ii tiri isdhibe isu kayna dhiib haddaadan dhabayn karin rajada aan dhowran jiray oo uu axdigii dhisnaa dhankaaga ka sii jiray maxaad ii tiri isdhibe isu kayna dhiib nafti ka dhigo lahayd dhayaha nolosheeda haga markay dhan kastaba ihana wayga dhantee ku tidhi oo ay dhab tahay maxaad dhabar jabi ku tidhi nafti ka dhigo lahayd dhayaha nolosheeda haga markay dhan kastaba ihana wayga dhantee ku tidhi oo ay dhab tahay maxaad dhabar jabi ku tidhi maxaad qalbi ku dhadhaba oo dheefka tagaha kolkaanu dharar ku araa adigu dhuxul naarayo cadaabu dhansiinaysaa maxaad qalbi ku dhadhaba oo dheefka tagaha kolkaanu dharar ku araa adigu dhuxul naarayo cadaabu dhansiinaysaa hadduu dhaxalkaagu yahay inaad dhaqashayagu ku dhiirata oo luntiyo idan xilligeedu dhicin dhimasho uu qalqaalintee jacayl dhabahu ku nacay jacayl dhabahu ku nacay jacayl dhabahu ku nacay ku nacay dhabahu ku nacay hadduu dhaxalkaagu yahay inaad dhaqashayagu ku dhiirata oo luntiyo idan xilligeedu dhicin dhimasho uu qalqaalintee jacayl dhabahu ku nacay jacayl dhabahu ku nacay jacayl dhabahu ku nacay ku nacay dhabahu ku nacay hadduu dhaxalkaagu yahay inaad dhaqashayagu ku dhiirata oo luntiyo idan xilligeedu dhicin dhimasho uu qalqaalintee
jacayl dhabaho ku nacay jacayl dhabaho ku nacay jacayl dhabaho ku nacay ku nacay dhabaho ku nacay waa tahay aan halkaa kaga soo noqono heestii jacayl dhabahow ku nacay dee law adiga dadkii u diray haddaba jacayl beebeeno saa ila meerayso meel la odhan jiray saa loo meeraysanayo heestan caawa waad fasaxday inaad jacaylkii dhabka ahaa aad tidhi ma wanaagsanee daaniya dadkii baad caawa isku diraysaa dee adaa yidhi maanaa keenay jacayl dhawa ku nacay maanaa keenay waa tahay barnaamijkan kusii soconaynaa aad baan ugu faraxsanahay inaynu caawa halkan aynu ku kulanno oo magaalada Hargeysa aynu ku kulanno oo waliba deesaan kugu soo raadiyay saan kugu soo helay arla qoosatay oo magaaladii oo dhan aan saa u soo raadiyay aan ku yiri yaa saalax sanaag hayo hala soo qabtay hala keeno waan ku soo helay aakhirkii markii aad fanka soo gashay ee aad fanaan noqotay iyo markii hore maxaa imika different ku dhaxay adiga dabciga dabeecadaada khaaska horta iglanay waxna waa shakhsiyadeeda waxna waa inta shacabka iga timaada saalaxanan waxaan soo haystaa ma dabcigaaga maxaa iska bedelay aniga shakhsiyadeeda wax iska bedel saalaxan haabanahay asxaabta inta la socday la socdaa kuwa adiga arkayda ku bediyaan ciyaar jiray baan ciyaaraya wax barashadii baan wadaa inay deen nafs ahaanteedii bedelgimo hadaan horumar iyo wax gaarsiiyo mooyaane shakhsiyadeedii wax isbedelo ka yimi jira inaanay ku iman doonin barnaamijyada tii dadkana inoogu soco ta dadku isbedel u imanaya طبعا isbedel uu imanaya inta marka hore qof iska xaafid ciyaal xaafideed baad ahayd oo xaafadiisa joogo iska dhalinyara iminkana qof heesay baad noqoto la garanayo nin weyn caan noqotay caan dhalay baad noqotay yani marka xanimo la sheegi karo horta wali ma gaarin laakiin isbedel uu imanaya xaga shacabka ma jirta qof aad u mahad celinaysid oranaysid qofkaas fankayga halka isoo gaarsiiyay oo aad mahad gaar isaga caaw u jeedinaysid haddaan isdhaho mariyo laba koob inaan dambaabay baan u malaynaya waayo haddaan halkan ka sheegana qaar baan ka tegay cid baan ilaaweeya laakiin sug saa lama rabo saas waxa weeyaan dad badan way ku taageereen dad badan way ku caawiyeen laakiin waxaa jira qof aniga iminka markaan fanka soo galiyay aan wariyanimada galayay hal qof aan u tiriyaa oo qofkaasi waa qofkii halkan isoo taagay boqolaal qof way caawiyeen oo dee waxay qabteen laakiin qofkaasan ka rabaa horta ma hado dhan ilaahay u sugnaatay marka labaadka fankayga waxa qayb libaax la ka qaatay mahad celinaya kooxda qaaliga dayaxbaan waana kala reebayn abwaanka kooxda gudoomiyaha Cabdigaas maanta waxaan aaminsanahay halkan ay soo gaaray isaga oo soo yeerkan in badan buu horumarkayga iyo dadaalkayga shaqeynay musishinadii heesahan halkay marayay tumay way hagar baxay bulshaawi baa kamid ah musishinka kooxda maxamed cabdullaahi diriye bulshaawi halkan aad baan uga salaamaya maftuux maxamuud ducaala kamid ah cadceed oo dadkii wax ku qabtay ku tumay axmed ibrahim furla kamid ah aad baan dhamaantood salaamaya ku tusay ku soo barayagana yaa idris ba joogay ku tusay kamarada meel fog laga doonay ma yaa idris ba joogay intaaba hawraar media na salaamayna muuqaalka waxaad kala soconaysaan hawraar media caawada English show baan hayo English show baan ka shaqeyn jiray laakiin caawadan iyo xilligan iyo time-kan waxa barnaamijkan iskale oo u shaqeynaa anaga iyo hawraar media aan u shaqeynaa waa tahay waxaan jecelahay inaan heesaha hore u sii socono heesta xigta noo soo qabanayo waa on tira oonkii raadkii daalkii iyo dihaalkii way naga reebtay haye bal erayada on tira heesaagu caawiyaa bay leeyihiin iyo magacyo cajiib waa ubaxarid ka burumay ilasweeye man kayftiishay waa udug ilaa xadi deeqay arageeda waan nashqaraaray yaa sameeyey heestan waxaa sameeyey abwaankay heestii hore ku santanaa cali maxamuud haybe erayada isagaa le laxanka iyo muusiga waa walaalkay marna ustaadkayga maftuux maxamuud ducaale saleebaan cadceed halkan aad baan uga salaamaya isagay marwadiisaba deeqsan iyo isagaba isagay deeqsan baad baan u salaamayna isagay deeqsan waa salaamayna iyo kooxdaadii iyo abwaankaaga isagana inaad tigay ahee dahagaas sakar bulshaawi iyagoo isku duuban halkan ka wada salaamayna mikrofoonkan jeclay inaan ku dhibo mar kale heesta on tira de aad intaas oo dhan ku kaabtay
ii qabo mikrofoonka sii daa وبحرد كابورمي السوية من كيف تمشي وأذوق لا حد دقي أرقيد والمشتراري وبحرد كابورمي السوية من كيف تمشي وأذوق لا حد دقي أرقيد والمشتراري ورحت إلى كل همي أردك بقفا كل شهر أما الروحي لهم لك جوجو يفكا ولدي كذا لما من ورحت إلى كل همي أردك بقفا كل شهر أما الروحي لهم لك جوجو يفكا ولدي كذا لما من أني كانت شعيل كابورمي تجمد كل كيق وبرتي أنت رميي استريحة نفتني قشرتها وقلاتي أنا جعيل كابورمي إجمد كل كيق وبرتي أنت رميي استريحة نفتني قشرتها وقلاتي أنا جعيل كابورمي إجمد كل كيق وبرتي أنت رميي استريحة نفتني قشرتها وقلاتي وأوق بسلوبك وبربرتي إندر قرد طفي أقول لي وأهل الدين احترام لي أنا وإندها يهدي وأوق بسلوبك وبربرتي إندر قرد طفي أقول لي وأهل الدين احترام لي أنا وإندها يهدي إذا تيحش ودسترنالتا إرسامي أوله تقننتا سلكي هيدها كوات كنتا يدا في الكيد والرئيسة إذا تيحش ودسترنالتا إرسامي أوله تقننتا سلكي هيدها كوات كنتا يدا في الكيد والرئيسة أني كانت شعيل كابورمي تجمد كل كيق وبرتي أنت رميي استريحة نفتني قشرتها وقلاتي أني كانت شعيل كابورمي تجمد كل كيق وبرتي أنت رميي استريحة نفتني قشرتها وقلاتي أني كانت شعيل كابورمي تجمد كل كيق وبرتي أنت رميي استريحة نفتني قشرتها وقلاتي halkaasaan kaga soo noqono heestii oon tire ee muusiga iyo laxanka iyo ereyadu intuba saa isku haysteen aynu saa inoo qaadaa dhigtay waxaan u mahad celinayaa oo aan halkan caawa aan ku sugannahay oo mahad gaar ugu celinayna Starbucks oo ah hotelka aan barnaamijka ku duubayno sidoo kale barkhad cas oo barnaamijka quruxda badan iyo muuqaalka quruxda badan inaga duubaya waa bahda hawraar waa aniga waa Eglan Showa waa iyo تحدق مقع وحول بيسايستان صالح سناق قبل كالسناق سومالي لان هذا اسكو هايستعاوة عاوة أدوك وحنو كشدنا قبل كي سناق هاون رير سناقنا وسلامينا وخارب كويدي ما دابا إنه رير سناق عاوة هل كان دي أدمقعي لما سيدتين بل هل هي اسمع رواينا يا كشرفتين مدن قيرقاب وملكدي سميدة مع موسك قروح ديو حوض معانيو شمبيروه مديهن كما يستقولها تصل لي magaaladii ceergabo ahayd ee gobolka Sanaag ahayd waa sharaf iyo salaan iyo karaamo aan halkan uga soo dirayna maadaama magaciida ma aanu caawa halkan ku hayno heesaheena rabaa inaan u soo noqono sax markii aan ku imi barnaamijka wax rabaa inaan dib kugu celiyo ma islahayd halkan aad adiga Eglan ku isku arki doontaan maalintii oo maanta ahaydba may dabcan may kuma tala jirin ismaan lahayn runtii waad garan kartaa qof isaga soo baxay inuu soo joogay badisho kubad iska ciyaaro iska damaashaado asxaabtiisa la joogay haddana ay dekadiska inta la ku dhaco oo horta dhowrkiis baa isku raacay ka wada aragtidaadii bay ahayd talabadooda hadalkeeni bay ahayd hore ismeynaan dee inuu meelaha iska daawano mooyaane
saddexaadna waxay inaynuba isa soo horfadhiisano barnaamij qabano ama kaag bay la noqotay aad baan ugu ma faraxsanahay islahayd maalmaha kamid ah soo fadhiisanaa halkan ku kulmaynaa run ahaantii waxaad ahayd saxafiyadan fanka saxafinimadeeda jeclahay waana rajeynaya inaan maalmaha kamid ah soo horfadhiisan doono laakiin maanta qornaatay inay maanta noqoto oo anoo afka kaa soo galay taageerayaasha meel walba kaa daawanaya fankaaga jecel talentiga anigu baan kugu soo raadiyay aan telefoonka ku soo raadiyay oo anigu aan kamid ahay dadka heesahaaga jecel waliba aadka u daawada intaynan heesihii aynu halkan barnaamijka ugu talagalnay bal hees baan jecel inaad taageerayaashaada ku casuuntid aad u qaadid ama adigu lahaw ama fanaan kale lahaw laba weligood iswaayahayni iskuma wirsatan inagu ahayni iskuma wirsatan inagu ahayni si fiican baad uga baxsatay oo nin wixiisa wata oo dhigihiisa wata oo codkiisa wata oo MP3 soo la qaybatay heesaan u baydna hadaba sax heesta ku xigteen soo qabanayno heesta ku xigteen dadku hadal ma karayaan heeso hadal iyo huun tarimayaan heesahaaga un bay karayaan heesta ku xigteen noo soo qabanayo maalmaha dunyada la dhahaa maalmaha dunyada erayadeeda waxa le abwaan intaynan u gelin bal waxaan rabaa heesta eri iyo labo maalmaha dunyada murukama dhamaate nafku jecel macaane ka maqnaadan odhan kaag muuqo dhowr yaa sameeyey heesaa magacyadoodanba ka helaybe heestan waxaa sameeyey abwaan xamse xadaari halkan aad baan ugu salaamayaa laxanku aniga muusigna walaalkay miftuux maxamed cali cadeed anigu mar horaan kuu sheegayba horta miftuuxna mar kale aan salaamin mar horaan kuu sheegayba waxaad iga ilowday inaad igu tidhaahid sax mulla xamiistaan hay hal erina ma samayso horta weligaa erayada ha waan isku dayaa laftarkooda laakiin weli waxaan anigu qaadaya ma soo weli wax shir laakiin labaad iman لكن ده مركي هرا نسكو كادر لا مع الفنان الحميسته فنان عان دلي رير سناجة مقعيسي هاي واي هاي هاستا نشعلا إنا المركي اللي راحتو برخض عس iyo heesta niyadaydu waa meel maamuusi ku taal maskaxdaydu waa tii mudane aad leedo miirkaada bar leedahay niyadaydu waa meel maamuusi ku taal maskaxdaydu waa tii mudane aad leedo maankaada bar leedahay kugu mabsuuda maanka ku raaco oo marka aan ku wayna nafta qayb dhanbay maqan u dhawaad ku maranto oo aan kugu mabsuuda maanka ku raaco oo marka aan ku wayna nafta qayb dhanbay maqan maalmaha adduunyada murukama dhammaate nafku jecel macaani ka maqnow addoon odhan kaag muuqo dhow maalmaha adduunyada murukama dhammaate nafku jecel macaani ka maqnow addoon odhan kaag muuqo dhow
kii muxibada siyaadsho midigtaadu waatii micinan bidayo qof wax maamushaa tahay mabda'aagu waa kii muxibada siyaadsho midigtaadu waatii micinan bidayo qof wax maamushaa tahay عبيد كما مرمو وحن كوغو معنية مروة أنكوريو ومتدانت إيمان مرغان لتاها عبيد كما مرمو وحن كوغو معنية مروة أنكوريو ومتدانت إيمان murugan la tahaa maalmaha adduunyada murugama dhammaatee nafku jecel macaani ka maqnow addoon oo dhan ka muuqo dhow maalmaha adduunyada murugama dhammaatee nafku jecel macaani ka maqnow addoon oo dhan ka muuqo dhow waa tahay aan halkaasi kaga soo noqono heestii heesahaba iryatay maalmaha adduunyada heesta ma jirta heestaad adigu horta dalbato intaad u tagtay abwaan lay sameeyo may weli laakiin doorashooyinkooda leeyahay haddaad hees cabiran lahayd caawa abwaan halkan soo fadhiisan lahaa hees nuucee baad odhan maxay ka turjumaysaa odhanayd ii samay hadda xaaladdan markaa uga codsaday dareenka aniga igu jira may wax kugu qafin oo sawir aad aragtaa ma jiraa sawir iminka ay muuqdaan arkoon hees ka dalban lahaa dabcan waxaan jeclahay anigu heesaa ku wada dhiirigelinta inaad qaadi in lagu sameeyo bulshadana wax taraya aniga nafahanteedana hor socday dhiirigelino ma jirtaa qof adduunkan ku noolaa aad surin jirtay maalmaha kamid qofkaas ma la kulmi kartaa ma arki kartaa sawir ma la soo geli kartaa fanaan bin qof adduunkan ku nool oo aad istaahid maalmaha kamid ma arki kartaa aad ku hamidid ma jiraa dabcan way jiraysaa wayna badan yihiin laakiin markaan usoo digirigto fankan anigu ku jiro way jiraan fanaaniin badan aan jecelahay fankooda taageero aan jeclaan lahaa la kulan aniga fanaan kuma weydiin wali ilaa hadda fanaan kuma weydiin waxaan ka hadlay tan anigu waxaad weydiisay waxaan anigu qofkan anigu doonayn baad weydiisay shaqadan aan ku jiray waxaan ka shaqeynaa oo fanaanimo haye dee kuwii kale isku ficiis ma fiican iska kiclisay haye isku ficiis isku shaqo toona ma kuwii kale markaan kuwiga fanka way maada way jiraan fanaaniin badan aan jeclahay inaan la kulmo arko waxa kamid ah maxamed xasan xuseen Lafoole haye fanaanka fankiisa aad baan u jeclahay ilaa yaraanteedina waan jeclaa Lafoole halkan inuu ka salaamayna haye aad salaamay way badan yihiin haddaan sii wado marka Lafoole maadaama soo qaadnay heesihiisii miin isira dul taagnaa mise salaam baynu ugu dhamaynaa ma oran karo anigu heestaasaan soo xulanayay soo dhan waan jeclahay deeq waa ku jeclaan ma inaad jeceshahay way ku jirtaa way ku jirtaa niyadayda kala baxday heesta haye way jirtaa heesta waan jeclahay heeso badan oo jeclahay heesihiisa marka fanaanka surin jirtay maalmaha kamida ma la kulmi kartaa ma arki kartaa waa Lafoole wax laga yaabo inuu ina daawo intii aan fankooda soo gaaran sheegaya fanaaninta hore way jiraan fanaanin aan jeclaa ilaahi aan abuurtay baa wafsaday kuwa quburaa ka soo kicin mayno laakiin inta hadda nool aan ku soo gaaran ku garaadsaday fankooda Lafoole dalban lahay waaw ma sha Allah barnaamijkeeni gabagabada ayaynu soo gaadhnay taageerayaashaada waxaan jeclay kelmad iyo laba inaad tiraahid iglanay anigu taageerayaal waan igala qiimo badan yihiinba qof dhan oo ma oran karo qof hami iyo ujeedo iyo hadaf sideeda la nolosha kale anigu taageeraya way igala yar qurux badan tahay marka anigu inta waxa iskaaga baro isku hay kana waa fan waxaan dhahay inta fankayga xiisaysa aad baan u salaamayaa intay jecel yihiin ka badan ana jecel ilaahay sharfo ilaahay karaameeyo kaliya la baan u salaamay codkaagay kugu yimaadeen mabay kugu yimaadeen codkaaga ayaa dadkan ku keenay heestoodina waynu u qaadnay Hargeysa joogtaa haddii lagu oran lahaa isla caawa sidii aas degdeg kugu imi
meel la midan caawa ku geynaya wadankeebaad odhan lahayd degdeg ha laygu tuuro anigu ma wadan meelaan ceergaawo ku doorsan lahaa ma jirto gobolkeenina mari baan ku odhan lahaa labadiinu waa tahay aad u maadsantahay labadiinuba waynu ridowno ina mari gaadho raacno saacadda magaaladii ninigay baan ku odhan lahaa meelaynu soconaa ma jirto anigu de waa anigaa soo noqday be basa qaybihii u dambeeyey barnaamijkii heesteen kusoo xidhanay noo hadhay xidhitaanka iyo hal mar baynu israacinaynaa midda kale heesahaaga magacyadoodii baa maskaxda iga dardiro ijiidayo markaa tidhi jacayl maxaya markaa tidhi adduunya waa hawlo badan tahay marka wixii oo dhan bal heesi dib iga soo celi soo dulmar ma ku soo dulmara ha magacyadii baan aad uga dhacay inaan tire ka mid ahayd jacayl dhabo ku nacay ka mid ahayd iyo maalmaha adduunyada tan maxaad iga tidhi heestan hangobaadley baa la dhahaa in barnaamijka ku xirayno hangobaadley hankeeda saas u sareeyaba hay erayada waxa le malaa gabadhaad jecesha tan ilaa adiga dib inoogu dhigay wax jacayl horta ma jiraan oo ma wuu jiraya bini aadan baan ahay qalbi baan leeyahay may wuu jiraya may warka kala saar wuu jiraya waa different wuu jiraa marka heestan saasaad dib ugu dhigtay heestan saasan inta ka badan hadaba kuma si baarbaarayo sax yaa sameeyay inta ka badan si qodqodimeyn may si qodqodimeyn waa si wanaagsan heestan waxa sameeyay walaalkay waxaan soo kugu boodiyo diwaadiga dagaalka markaan adiga soo boodiyo waxaan ku yiri waxaad soo xidhatay markii aad kubadda ka soo baxday ayaa difaacaaga soo xidhatay saasaabadii xubsanaysa mar baa lagu gaaday mar labaad iyo lagu gaaday marsleen marka heestan yaa sameeyay heestan waxa sameeyay saaxiibkay Wardi Saacadaale laxankeeda waxa la Cabdikariin Cali Shaah muuska waxa tumay ustaad Axmed Weli Ibrahim Maxamuud Furle taweynaka heestan dad waaweyn baa isugu tagay macallinkii weynaa ee Furle tumay sax aad baan ugu salaaminaysaa Cabdikariin Cali Shaah baa laxankana saaray sax intaan mikrofoonka ku dhiibin de waa heestii ugu dambeysay barnaamijka wadiga dib u dhigtay oo adigu waxaad ula jeedayba isna qodqodi mayno oo inta isu dhaafi mayno heestan waa hees dad waaweyn isugu tageen chance ugu dambeeyay rabaa inaan ku siiyo maadaama barnaamijka baxayno يا سلام يسام حد شيء هالكن عاوة. كان اسكود بي. ودي بسوي كذي سيسكنا. واحد سلام يا هو يضي معان أنا دون كوجه على هاي. مريم علي أحمد فرح. أباهي فهمني كي كان كل خيبن دمان صدق بنو سلام يا. يعني أصحاب تيدا. ودي يلا بكم مسوي كوي بكرة أصحاب تيدا دمان سلام يا. يجوز كدوبان. ما حنكلو سلام يا كوحفنات كيجا. عندي يحبان. مسيش النديدة. iyagana hadda koor baan ku xusan ku sheegay waa sax waxaan kala salaamayaa hawlwadeennada barnaamijkan inoo hagar baxay Hawraar Media Production Idris Ismail Abdi horeeyo engineer Barkad Asman salaamaya tawanaka adiga ana u horeeyay maxaa la yiraahdaa halka ana horeeyay adiga waa ku dambaysiisanayay maxaad ii horbood waxa la yiraahdaa ana u horeeya ay adiga inagu maanta dhaban isaga fadhino iyadana ugu dambaysiin isla salaantana ku dambaysiiso iyagana waan salaamnay adigu igla saaraxna waan ku salaamay waan ku sii macsalaaminayay maadaama tira safar baan marka dad macsalaaminayso waxaan ka rabaa heesti macsalamaha heesti macsalam tawgu toobiyo qorraxdu dalaalnimo dadku aabiyo hooyo tayna kaaga dhigo ka geysan ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay aniguna hadiiba aan caawa halkan Saalax Sanaag aan barnaamij ku wada qabanayno waliba aad ogtaysaan kugu soo raadiyay iyo sidaan kugu soo helay iyo taageeraha aan ku ahaa aan cagahayga kugu imaaday barnaamijka quruxda badan waxaad kala socon doontaan Hawraar Media Production fanaan laba maahe fanaanka Saalax Sanaag iyo barnaamijka martiko anigu waa English show barnaamijka duubaysay waxa duubay muuqaalada quruxda badan Barkad iyo asxaabta Hawraar Media Idris Ismail Abdi oo isna barnaamijka isku soo dubariday barnaamij kale intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa heesta Hangobaadley iyo fanaanka Saalax Sanaag إيدنا سبلي حمي بقرلي عاقمانكيو هذا الملبلي إيدنا سبلي حمي بقرلي عاقمانكيو هذا الملبلي وبقات قرح لي انقبض لي وبقات قرح لي انقبض لي أوه بسمن لي عيان مضانيو هيك مقلي أو هنالي
samaley ayaan mudaniyo iga muuqlay oo hanaalay hayba sharaf ley hawrar murtilay ilka noloshiyo hubal mara oday hayba sharaf iyo hawrar murtilay ilka noloshiyo hubal mara oday ilka noloshiyo hubal mara oday hayba sharaf iyo hawrar murtilay ilka noloshiyo hubal mara oday hayba sharaf iyo hawrar murtilay ilka noloshiyo hubal mara oday ilka noloshiyo hubal mara oday haagog dilay hoban muqlay anta laabtiyo tinal dhalay haagog dilay hoban muqlay anta laabtiyo tinal dhalay weedufnalay nurilaalay weedufnalay nurilaalay oo hirdhalalay ayaan mudaniyo iga muuqlay oo hanaalay weedufnalay nurilaalay weedufnalay nurilaalay oo hirdhalalay ayaan mudaniyo iga muuqlay oo hanaalay hayba sharaf ley hawrar murtilay ilka noloshiyo hubal mara oday hayba sharaf iyo hawrar murtilay ilka noloshiyo hubal mara oday ilka noloshiyo hubal mara oday hayba sharaf iyo hawrar murtilay ilka noloshiyo hubal mara oday hayba sharaf iyo hawrar murtilay ilka noloshiyo hubal mara oday ilka noloshiyo hubal mara oday